wardegdeg ah oo hadda soo dhacay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo looga yeeray magaalada Kampala midowga Afrika oo si weyn uga canaanad doona arrimaha la xiriira doorashooyinka xilli siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay dhawaan u dacwoodeen qaramada midoobay si weyn loogu kala qaybsamay aragtida la xiriirta in waqtigan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qadiyadeeda loo raro in ku meel gaarnimo dib loogu celiyo waxaan kula wadaagi doonaa xog degdeg ah oo ku gadaaman kulan dhaqsi ah oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda Afrikaanta iyo wakiilada ka socda qaramada midoobay ay ku yeelan doonaan magaalada Kampala waxay ahayd halkii ugu dambeysay ee lagu gaaray go'aanka kama dambaysta ah ee xalka Soomaalida mar kale ma laga yaabaa in xalka Soomaaliyeed loo qaado meel ka baxsan magaalada caasimadda ee Muqdisho xogtan kulankaasi ku saabsan oo aan durbaba helnay ayaan halkan idinkugu soo baahi doonaa soo dhawaada halkan naga daawaneysaan warbaahinta CSM aniguna waxaan ahay Cali Baashi Cabdi Mareeg Travel Agency Cargo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay xafiisyo kala duwan ku leedahay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho wagaag xafiiska Nairobi oo ku yaala Islii James Street ka soo horjeedka Kulan Coffee suuqa weyn ee loo yaqaano Hoda Tower Festival xafiiska nambarkiisuna waxa uu noqonayaa F30 amaba ugu hagaag xafiiska Muqdisho oo ku yaala suuq Bacaad Ruxsan Mall garoon falo sidoo kalena dukaanka ama xafiiska nambarkiisu waxa uu noqonayaa F20 wixii intaasi faahfaahin dheer kala xiriir nambarada iyo ciwaanada kale ee shaashada ku qoran adigoo beegsanaya nambarada ku qoran shaashada hore ee muuqaalka Mareeg Travel Agency waa maareeyaha safarkaaga haddaba iyadoo dhawaanahanba siyaasadda Soomaaliya ay ku jirtay calcalaag xoogan dhibaatooyin badan ay taagnaayeen oo la xiriira dhinaca isfaham la'aanta madaxda Soomaalida waxaa lagu yeeray kulanka amniga qaranka oo ka dhacaya magaalada Kampala inkastoo qodobada ugu horeeya iyo ujeedada kulankan ay noqonayso waxa laga yeelayo ururka midowga Afrika ee Azam ee Soomaaliya ku sugan horena ay halkaasi u gaareen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasiirka amniga General Ismaaciil Sheekh Cabdullaahi Fartaag ayaa sidoo kale waxa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilada ka socda mucaaradku ay isku arkaan magaalada Kampala halkaasina waxa ka qabsoomaya kulan weyne looga arinsanayo siyaasadda dalka marka laga yimaado arrimaha laga yeelaya amniga iyo sidoo kale iyo in midowga Afrika ay ku sii sugnaanayaan gudaha Soomaaliya iyo in kale sidoo kale waxa la filayaa in wakiilada ka socda qaramada midoobay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay halkaasi si weyn uga canaantaan wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Imaan Ciga oo dhawaan hadla sidoo kale waxa uu sheegay in deeqihii qaramada midoobay meesha laga saaray taasi oo caqabad ku sii noqon karta sida fila Soomaaliya ay isugu sii filnaan karto waqti dheer sidoo kale waxa uu sheegay in tani ay saameynayso dhinacyada kaabayaasha nolosha bini'aadamka ku gadaaman sida iskuulada waxbarashada iyo sidoo kale gabi ahaanba goobaha daryeelka dadweynaha sida caafimaadka xitaa wuxuu sheegay in cuntooyinka iyo amniga nadaafadda ay saameyn ku yeelanayso Soomaaliya ayaa hadda la aaminsan yahay in deeqihii caalamiga ah intooda badan meesha ay ka baxayaan maadaama warwareeg xoogan uu ka taagan yahay hanaanka loo wajahayo xilligan kala guurka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la ogeyn waxa uu uga jawaabayo eedeymaha culus iyo dhaliilaha madaxda Afrikaanta iyo kuwa qaramada midoobay dhankooda uga imaan doona sidoo kalena waxa la filayaa ama waqtigan muuqanaysa in qaar kamid ah wadamada dariska iyo fila Soomaaliya aysan isku wanaagsaneyn si gaar ah Kenya Uganda iyo sidoo kale Ethiopia oo si kala fogaasho xoogan laga dareemayo dhinacyadaasi marka la eego qodobadaasi oo dhan waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doonaan fila Soomaaliya damaceeda ku gadaaman in dalka taladiisa isku soo dhajiso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laba kala doorasho ayaa hortaala lama soo ogaamid oo qaadan doono waqtigeeda ayaa halkan idinkaga sheegi doonaa muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiina gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan update-kii ugu dambeeyay ee arrimaha siyaasadda dalka